بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشا كحل نقيل اوفيشيال maanta waxaan idin sidaa mid kamid ah mucjisooyinka ku soo arooray quraanka mucjisadaasi maxay tahay halkan kaga bago ka hor intaan barnaamijka guda galin subscribe like iyo share ta yaan laga iloobin kitaabkan weyn ee quraanka kariimka ma dhamaato mucjisooyinkiisa culimadu kama dhargaan cilmigiisa qofka ku hadlaase run buu sheegay kii wax ku xukumaase garsoor xaq ayuu la yimid cidii ku amal fashana waa laga abaalmarin cidii dadka ugu yeedha waxa lagu hanuuniyaa jidka toosan haddaba mucjisooyinka aan kala go' lahayn ee quraanka waxa kamid ah ereyga ku soo arooray suuratu daariyat oo macnihiisu qoto dheer yahay ereygaas oo ah was-samaa'i dhaatil hubuk ilaahi wuxuu ku dhaartay samada iyo quruxdeeda iyo wadooyinkeeda ibnu kathiir wuxuu ku yiri tafsiirkiisa ibnu Abbas ereyga hubuk waa samada u saaxiibka ah quruxda soo jiidashada wanaaga iyo isheesadka sidoo kale waxa ku fasiray Mujaahid Ikrama Saciid ibn Jubair iyo Abu Malik iyo kuba kale ogsoonow hal sano oo ilayska qoraxda ah waa ku dhawaad 9 trilyan oo kiiloomitir guud ahaan intaas ayaan ku gabagabaynaynaa barnaamijkeena maanta oo aan kaga hadalnay mucjiso kamid ah mucjisooyinka quraanka kariimka inta kan kiisa xiga aynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadino nooli kulanti dambe oo xiiso leh